soo dhawaada daawadayaal qodobada wararka aanu idin haynana waxa ugu waaweyn dagaalamayaasha al-shabaab oo dhex talaabsanaya magaaladii Balcad halkaasoo ay dad dilow iyo taagtaagani ka soo kamradeynayeen qodob kale aan idin hayna waxa weeye xeebtii Niido oo si bilaash dhalinyaradii Soomaaliyeed loogu leynayo taasoo aanay ciidiba wax iska saarayn ciidamadii joogay in amniga iyo nabadgelyada ilaalinayay ay xabad madaxa uga tooganayaan qodobka kale aan idin haynaa waxa weeye bajaajleydii magaalada Muqdisho oo xilligan mudaharaadaysa waayahay aan ku horeeyo bajaajleyda magaalada Muqdisho 2025 bay mudaharaadaysa halka tog dheerna maanta qaynuun la isku dooranayay iyo cod iyo qof waliba ikhtiyaarkiisa dhalinyarada xuquuqdooda xagee ku maqan tahay markaa dhalinyarada reer Muqdisho ee bajaajleyda masaakiinta ee maalintii ku doonta saddexda kursi ee bajaajtu leedahay bay ku raadsadaan irsaaqada Ilaahay u qoray xuquuqdooda xagee ku maqan tahay yaa salumiyay xuquuqdooda waxay ku maqan tahay hogaamiyeyaasha maanta xukuumadda hogaaminaya ee sida foosha xun u hogaaminaya waa caadaqaatayaal waxay maanta ka doodayaan Itoobiya iyo Soomaaliya arrinka ka dhaxeeya xuquuqdii qofka gurigiisa seexdana waa maqanta marka hore halkan aad joogto ee madaxtooyada hareeraheeda ka bilow mudane madaxweyne waxaad ka bilowdaa xuquuq raadinta halkan ka bilow markay Muqdisho xuquuqdeeda hesho ee dhalinyaradu xuquuqdooda heshay haweenku helaan meesha kale ee arrimaha dibadda iyo arrimaha masiirka markaasay ku banaayeen maanta qofkii Muqdisho dhexdeeda joogay ayaan ikhtiyaar u lahayn inuu wax dooran karo inuu shaqaysan karo inuu badiisii wax xaq u lahaa ku dabaalan karo qodobka dalka kaga gudbo qodobka labaad waxa weeye xeebta Niido waxay meel loo dalxiis tago dhalinyaradu u dalxiis tagto wixii badda iska leh weeyaan haddaan iyo midug kala toona ugu yimaadaan nin badiisii jooga oo ammaankiisii aad mas'uul ka ahayd ayaad u timi madaxaad xabad kaga jiiday dhalinyarada reer Muqdisho waxa leeyahay marka horeba maalin walba saasunba marba leedin midhaynaya meesha leedin kaga imanayana ma garanaysaan wada damiirka ka dhintay weeyaan damiirkoodu wuu daboolan yahay waxa weeye markaynu dad Soomaaliyeed nahayeena isu dhugdhugleyna hadii imka naylaga kala baxo ee noolaga kala tago gaalka madowga ka cadibada ka tagaan way isfahmaysan oo garanay laakiin waxa tiin kuwa qulubtoodii la daboolay fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala asar waxa weeye maanta idinkoo halka jooga ayaa gaalkii madoobaana xabada idinla dul taagay kii cadaana dushayda kaga maamula dadkan aad madaxda ka dhiganaysan madaxa moodine waa dad la soo dirsaday waa dad la maal gashaday waa dad maskaxdoodii maanta lagu ciyaaray waxaad arkaysaa xashashka Maxamuudo maalintii albaabada laga xiranayay shirkii Itoobiya wadageedeen maalintii Itoobiya caayeen waa ogeydeen 7 casha u dhaxaysay maalintii Itoobiya caayelaha waa cadowgeen Axmed Mudube dagaal kula jira 7 casha ka bacdina waa loo yeeray si khaasaba diyaarad lagu soo tuuro wuu tagay albaabka hoos looga xidhay xataa alaan waxyaabihii laga wada hadlay arrimo diblomaasiyadeed uma lagu sheegay cid loo adeegsanaya waa idinka anigu waan mudaharaad lahayn shalay markuu halka naga lahaa waa cadowgeen ee diyaaradda sida khaaska looga soo diray 7 casho ka bacdi ee uu ka duulay garoonkii aadan cadeen kumu soo noqdeen garoonka laftigiisa ka mudaharaad lahaa way macadowgii baad ii soo raacdaan oo dhan wadiga cadowgii tagay la soo shiray miyaad ii soo raacda waa iska haa shalay cadowgaaga ku sheegay marka idinku waxa tihiin dad jihada la doono loo jeeyo shalay cadowgii ku sheegay maanta wuxuu ku sheegay waxa weeye walaalaheena Itoobiya war ma aha walaalaheena ma aha gaal walaalaheena ma aha yaa ayuha alladina aamanu لا تتخذوا بدانة من دونكم ولا يألونكم خبالا ورجالك waxa la idinku isfogeynaya laabta soo gashanina oo hay isku soo dhaweynaha wad ogtii Ilaahay wuxuu ku yiri qad bayana lakum aayati kuntu taqilun hadaa tiin qaar wax garanaya waan idin sheeg waa la idin sheeg marka gaalka iyo qofka hogaaminaya waa isku mid gaalka iyo qofka kugu soo hogaaminay qof cadaana ba idin yimaado gurigeena ku soo galay mise qof gaal madow idin yimaado كل جوا ديك سلا وقع ديك كوم مدحضة
marka waxaan idinka codsanayaa youtube-ka inaad subscribe tiraaho in aad fogeyso barnaamijka in aad ogaato jiha kasta cadowga uu ka yimaadaa inaad ogaato jihada uu kaaga yimaado. Wada salaam ya dhamaantii.